ciyaartooyga haddii la doonayo koob in la qaado waxaa la doonayaa ciyaar wanaag ismaqal dhaqan fiican oo garoonka lala yimaado inay noqoto isku xidhi ciyaarta ah ciyaartu waxay ku halowdaa qofku inuu yidhaahdo gool buu dhaliya ha lagu yidhaahdo oo isagoo duwo ka dheelayo uu yidhaahdo gool baan dhalinaya ciyaartu waxay asal ku tahay inuu qofku garanayo midka baaga ka bidixda ka ciyaaraya gool dhalinta cidda iskale xataa idinkaa yaqaansan ciyaartiidu tahay laakiin isdhiibka ciyaartu hadday halowdo oo baryahan facebookana waa live gabadh ay ku jirta khadka oo meel kale ay tawinayso xogaa arrintaasi ciyaarta damage bay u geysataa sidaa daraaddeed macallimiintiina way idinla joogaan waxaan u malayaa waqtigeeni dhalinyarada aan ahayn waxaana ma jirin laakiin hadda wax cusub baa soo kordhay in ciyaartooyga lagu habeeyo inay gartaan isdhiibka ciyaartu sida ay tahay waa qori isu dhiibkii la ciyaarayo oo kale waa inuu garan karo qofku spaceka ciyaartiisu ay ku eg tahay numberka uu wato iyo spaceka uu ka ciyaari karaa intee weeye ilaa halkee uu gaari karaa taasaa asal ma rabno markaa gool dhalinta waa dhibco la tirsan doono laakiin kooxdoo dhan baa loo tirinaya qofka dhaliyo uma tirin doono haddaan idhaahdo qofkii gool dhaliye baa sidaa la yeelayaa wax kalay keenaysaa waxaase idinka ballan qaadayaa inaan u soo jeesano waayo waxaa la ohan jiray waxay yidhahdeen madaxweynuhu amnigu ka hadlaa ciyaaraha iyo dhallinyarada shaqo kuma leh dhallinyaraan ahay hadda waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego waxaa ka walbahaarina shaqo abuuris ciyaartooyga xulka ee hadda gobolka meeqa way wasiir 22 taqriiban 25 badhe waxaan rabnaa accounti waa loo furi nin walba bishu markay dhacday $200 baa ugu soo dhacaysa wuu joogaa wasiirka maaliyadda iyo wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga labaduba bajetka loogu talagalay shaqo abuurista dhalinyarada kow waxaa ka ciyaartooyga sanadka bisha bil walbana mushaharkooda 28 hadday waayaan dacwad bay soo qorayaan anu ma odhanayo ilaa goolka soo qaada laakiin waxaan idinkula dardaarmaya ciyaar wanaag la imaada sanado badan bay socon doontaa ciyaar wanaagana waxaa ugu fiican edebta ciyaarta in la ilaaliyo garoonka markii laga baxayo funaanada la iska bixinin nooca dhaqanka haddii si lagu yeeloon xanaaq kale la muujinin waxaasoo dhan waxay u baahantay in la ilaaliyo ciyaar wanaaga waxaad la dhaydeelaysaa waa Soomaali meel kastoo loo qaado meel koobku ma tegayo laakiin dee ma rabna inaan caadadii goyno soo ma koobku meel buu mari jiray raadkiisa isaga ugu yaqaana taa waxaan rabnaa inuu soo noqdo shicaarka la qaadanayo calaamadda astaanta ma aha calanka Jubbaland waa maroodiga wey waa in la soo badiyo maroodiga waa in la soo badiyo waa inuu isagu garoonka aada u yaallo dadka Soomaalida moogta in badan maroodiga bay ka cabsanaysaa laakiin maradan oo iska badatay hadda nina kama cabsanayo waxaan rabnaa marka in la muujiyo ciyaar fiican hufnaan akhlaaq isubaasidda kala dambeynta ismaqalka nooca ciyaarta la isugu xidhayo sida ciyaartu ay noqonayso intaasaa u baahan in la maqlo macallimiinta ha laga dambeeyo macallimiin waad haystaan maanta raggii waxaa idiin jooga wax badan soo samayn jiray soo ciyaari jiray waxaan u baahanay marka in talada la qaato qofka ciyaartooygii talada kama soo haro ha laga saaro ciyaarta gudaheeda istus wax la yidhaaho anaa dhaliyey anaa socda anaa kan yeelay maya ciyaarta hufnaanteedu waxa weeyaan isku xidhnaanshaha tiimka in la ilaaliyo qofkani markuu u arko xataa marka la bedelayo dhalinyarada waxaa jira marka la yidhahdo hebel ciyaarta waxoogaa ama uyalo daalay ha la bedelo waxay qaadaan waxoogaa kumbuleesaha sababtoo hadhow markii la noqdo waxaa la adig maxaa lagaa saaray waxaa ilooba markaa ya waan rabnaa markaa in hawshaas sideeda loo tixgeliyo
aad baan mar labaad iyo mar saddexaad idinku mahad celinaya